السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله. بلse aniga ma ihi marka hore wariye ma ihi waxaan warkan idinku soo gudbinayaa waxa weeyaan qof walba dhibaato ayuu sheeganayaa dhibaatada aad sheeganaysid midaan aan ku soo gudbinayo meesha ay la eg tahay si aad markaas ka bacdi aad u quusato ama aad u degto aad ma garanaysaa niyad ay kugu degto way rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam markasta qofka ka sareeya fiirinin ee qofka ka hooseeya fiiraya la yiri yaani markasta waxa la rabaa qofka ka masiibada badan oo maanta la joogo waqtigan la joogo inaad fiirisid way hadii adiga awlaadaada ay agtaada ay joogan oo haddana ay yaani ii sheeg adiga sida rabtay aad ka weysan tahay qof ayaaba maanta ilmihiisa uu la yahay si fool xun ay ku dhinteen waxaan hadda idin soo gudbinayaa aan rabaa inaan idin la wadaago barnaamijkii wax yar ka hor aan idin soo dhigayay oo ahaa awlaadii ayaa haddeertaan waxaan idin soo gudbinayaa waa la ogaaday qofkii sidaas yeelay awlaadii abriyada ahaa ceebka saliinta ahaa ee dambi la'aanta ahaa wiilkii iyo gabadhii qofkii xasday oo sidaas yeelay qaabkii yacni wuxuusnimadii ii sheeg adiga yeelay ayaan idin soo gudbinayaa oo la helay awlaadii insha Allah aabahoodu uu ka soo gaaray janaazadii waan ku tukanay waana la qaaday balse aad baa ay u fool xumaayeen oo loo fool xumeeyay xitaa wiilka gacmaha xitaa waa laga jaray dhunta xitaa waa laga gowracay xasidnimo ayaa saas loo yeelay haddaan idin sheego qofka saas yeelay ma malaysan karaysaan yacni ma xamili kartaan ee ii dulqaata walaalayaal alxamdulilah horta ilmihii waa la soo aasay dad dembi geystay ma ahayn iyaga insha Allah shafaaca Allah uga dhigo ciddii ay ka geeriyoodeen saan idin sheegay walaalayaal waxaa ilaan xaqa sidiisa ma qarsamabo awlaadii meedkooda la soo qaaday la soo sheegay la soo qaaday gurigooda la keenay ciddii waxyeesho la weysanaa Facebook ayaa la dhigay in la la'yahay laba sawir waaye iyagu aad u qurux badan u labisan sawir la soo dhigay ayaa lagu baafinayay Facebook bajaajlihii awlaadda waday ayaa aqoonsaday meesha lagu magacahay tacsiyada taashe ayuu yimid wuxuu dhahay awlaadan shalay iyagoo oynaya oo islaana ay leedahay eedadooda ayay ma garanaysaa guriga eedadooda diidooyin la leeyahay oo gurigii uu geeyay ayaa wuxuu dhahay bajaajteedana san ku qaaday aniga ayaa ma garanaysaa meel geeyo way islaantana waa aqaanaa heblaaye hebel ayaa la yiraahdaa okay ciidana lagu daray ii sheeg adiga askarta ama ma garanaysaa booliska ayaa dabagalay wiilkii waa la waday gurigiina geeyaa la dhahay gurigii ala ay xaal mar la istixraacay la dabagalay waxaa la ogaaday qofkii awlaadda sidaas yeelay amaba ku taliyay in tacsiyada uu joogo uu oynayo tacsiyada ayayba joogtaaba qof haweeney ah ayaa noqotay iga raali ahaada haddii aan dhaho haweeney waayo dumar inay heerkaasi ay gaarsiisan yihiin marnaba ma aan ogeyn balse waxaas iyo wax ka sii badanna waa laga sugaa haddiiba ficilkan iyagu ay sameeyeen islaantaba meeshay ku ooynaysaa ku barooranaysaa waxay leedahay yaa saan yeel gacan ka hadaran baa saan yeeshay iyaga dembi ma laha saan way ayay leedahay waxaa la ogaaday eedadooda in ay sidaas yeeshay ayaa la ogaaday walaalayaal islaan wadaadkan uu qabi jiray calafkooda uu dhammaaday ay mar hore kala tageen in ay ka dambeysay ayaa la ogaaday haddaan si kale aan u dhaho awlaadiisa waaweyn hooyadood ayaa sidaas u gashay ilmaha yaryar marka walaalayaal adduunka doon ayaa la taagan yahay qofkii adduunyo wax uga dhiman yihiinow adiga xalkaaga og maanta waa adduunyo berina waa aakhiro ninkii maanta nool beri ma noolo ee dulmiga iska ilaali qof walbow dulmiga iska ilaali ummadda ha dulminin in yar ma garanaysaa dhuuracasta in la mid ah oo dulmi ah ummadda ha u geysanin hadda arrinkaas ayaa jiro
islaantii waa la qabtaa la leeyahay nin kale ayaana qabo waxaaba dhici kartoba in ay uur ay leedahay xad laguma fulin karo haddii uur ay leedahay haddii uur aysan lahayn xadkii ayaa lagu fulinayaa sheekada yacni way sii cakirnaanaysaa ilaahay ceebteena ma garanaysaa ha asturo ilaahayna ma fashiliyo arrinkaas ayaa dhacday degdegaas kale ayaan haddana idin waday wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله balse aniga ma ihi marka hore wariye ma ihi waxaan warkan idinku soo gudbinayaa waxa weeyaan qof walba dhibaato ayuu sheeganayaa dhibaatada aad sheeganaysid midaan aan kuu soo gudbinayo meesha ay la eg tahay si aad markaas ka bacdi aad u quusato ama aad u degto aad ma garanaysaa niyad ay kuugu degto waayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam mar kasta qofka kaa sareeya fiirinin ee qofka kaa hooseeya fiir ayaa la yidhi yacni mar kasta waxaa la rabaa qofka kaa masiibada badan oo maanta la joogo waqtigan la joogo inaad fiirisid waaye haddii adiga awlaadaada ay agtaada ay joogaan oo haddana yacni ii sheeg adig sidaa rabtay adig aad ka weysan tahay qof ayaaba maanta ilmihiisa uu la-yahay si foolxun ay ku dhinteen waxaan hadda idiin soo gudbinayaa aan rabaa inaan idinla wadaago barnaamijkii wax yar ka hor aan idin soo dhigayay oo ahaa awlaaddii ayaa haddeertaan waxaan idin soo gudbinayaa waa la ogaaday qofkii sidaas yeelay awlaaddii abriyada ahaa ceebkasaliinta ahaa ee dembi la-aanta ahaa wiilkii iyo gabadhii qofkii xasday oo sidaas yeelay qaabkii yacni waxoosnimadii ii sheeg adiga yeelay ayaan idin soo gudbinayaa oo la helay awlaaddii insha allah aabbahooda wuu ka soo gaaray janaasadii waan ku tukanay waana la qaaday balse aad baa ay u foolxumaayeen oo loo foolxumeeyey xitaa wiilka gacmaha xitaa waa laga jaray dhunta xitaa waa laga gowracay xasidnimo ayaa saas loo yeelay haddaan idiin sheego qofka saas yeelay ma malaysan karaysaan yacni ma xamili kartaan ee ii dulqaata walaalayaal alxamdulilah horta ilmihii waa la soo aasay dad dembi geystay ma ahayn iyaga insha allah shafeeca allah uga dhigo ciddii ay ka geeriyoodeen saan idiin sheegay walaalayaal waxaa ilaan xaqa sidiisa ma qarsamabo awlaaddii meedkooda lasoo qaaday lasoo sheegay lasoo qaaday gurigooda la keenay ciddii waxyeesho la weysanaa facebookga ayaa la dhigay in la la-yahay laba sawir waaye iyagoo aad u qurux badan u labisan sawir lasoo dhigay ayaa lagu baafinayay facebookga bajaajlihii awlaadda waday ayaa aqoonsaday meesha lagu magacahayay tacsiyada taashe ayuu yimid wuxuu dhahay awlaaddan shalay iyagoo oynaya oo islaanna ay leedahay eedadooda ayay ma garanaysaa guriga eedadooday diidooyin la leeyahay oo gurigii uu geeyey ayaa wuxuu dhahay bajaajteedana saan ku qaaday aniga ayaa ma garanaysaa meel geeyo waay islaantana waa aqaanaa heblaaye hebel hebel ayaa la yidhaahdaa okay ciidanaa lagu daray ii sheeg adiga askarta amaba ma garanaysaa booliska ayaa dabagalay wiilkii waa la waday gurigiina geeyaa la dhahay gurigii calaa ayi xaal mar lastixraacay la dabagalay waxaa la ogaaday qofkii awlaadda sidaas yeelay amaba ku taliyey in tacsiyada uu joogo uu oynayo tacsiyada ayayba joogtaaba qof haweeney ah ayaa noqotay iga raalli ahaada haddii aan dhaho haweeney waayo dumar inay heerkaasi ay gaarsiisan yihiin marnaba ma aan ogeyn balse waxaas iyo wax ka sii badanna waa laga sugaa haddiiba ficilkan iyagu ay sameeyeen islaantaba meeshay ku oynaysaa ku barooranaysaa waxay leedahay yaa saan yeel gacan ka xadaran baa saan yeeshay iyaga dembi ma laha saan way ayay leedahay waxaa la ogaaday eedadooda in ay sidaas yeeshay ayaa la ogaaday walaalayaal islaan wadaadkan uu qabi jiray calafkooda uu dhammaaday ay mar hore kala tageen in ay ka dambaysay ayaa la ogaaday haddaan si kale aan u dhaho awlaaddiisa waaweyn hooyadood ayaa sidaas u gashay ilmaha yaryar marka walaalayaal adduunyo gadoon ayaa la taagan yahay qofkii adduunyo wax uga dhiman yihiinow adiga xaalkaaga og
maanta waa adduunyo berina waa aakhiro. ninkii maanta nool beri ma noolo. dulmiga iska ilaali. qof walbow dulmiga iska ilaali. ummadda ha dulminin. in yar magaranaysaa dhuuracasta in la mid ah oo dulmi ah ummadda ha u geysanin. hadda arrinkaas ayaa jiro. islaantii waa la qabtaa la leeyahay, nin kale ayaana qabo. waxaaba dhici kartoba in ay uur ay leedahay, xad laguma fulin karo haddii uur ay leedahay. haddii uur aysan lahayn, xadkii ayaa lagu fulinayaa. sheekada yacni way sii cakirnaanaysaa. ilaahay ceebteena ma garanaysaa ha asturo, ilaahayna ma fashiliyo. arrinkaas ayaa dhacday. degdegaas kale ayaan haddana idin waday. wabillahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله. balse aniga ma ihi marka hore wariye ma ihi. waxaan warkan idinku soo gudbinayaa waxa weeyaan, qof walba dhibaato ayuu sheeganayaa. dhibaatada aad sheeganaysid midaan aan kuu soo gudbinayo meesha ay la eg tahay, si aad markaas ka bacdi aad u quusato ama aad u degto, aad ma garanaysaa niyad ay kuugu degto. waayo rasuulku wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam, mar kasta qofka kaa sareeya fiirinin ee qofka kaa hooseeya fiir ayaa la yidhi. yacni mar kasta waxaa la rabaa qofka kaa masiibada badan oo maanta la joogo, waqtigan la joogo, inaad fiirisid waaye. haddii adiga awlaadaada ay agtaada ay joogaan oo haddana yacni ii sheeg adig sidaa rabtay aad ka weysan tahay, qof ayaaba maanta ilmihiisa uu la-yahay si foolxun ay ku dhinteen. waxaan hadda idiin soo gudbinayaa, aan rabaa inaan idinla wadaago barnaamijkii wax yar ka hor aan idin soo dhigayay oo ahaa awlaaddii ayaa haddeertaan waxaan idin soo gudbinayaa. waa la ogaaday qofkii sidaas yeelay. awlaaddii abriyada ahaa, ceebkasaliinta ahaa, ee dembi la-aanta ahaa, wiilkii iyo gabadhii qofkii xasday oo sidaas yeelay, qaabkii yacni waxoosnimadii ii sheeg adiga yeelay ayaan idin soo gudbinayaa oo la helay. awlaaddii insha allah aabbahooda wuu ka soo gaaray. janaasadii waan ku tukanay, waana la qaaday. balse aad baa ay u foolxumaayeen oo loo foolxumeeyey. xitaa wiilka gacmaha xitaa waa laga jaray, dhunta xitaa waa laga gowracay. xasidnimo ayaa saas loo yeelay. haddaan idiin sheego qofka saas yeelay ma malaysan karaysaan, yacni ma xamili kartaan ee ii dulqaata. walaalayaal, alxamdulilah, horta ilmihii waa la soo aasay. dad dembi geystay ma ahayn iyaga. insha allah shafeeca allah uga dhigo ciddii ay ka geeriyoodeen. saan idiin sheegay walaalayaal, waxaa ilaan xaqa sidiisa ma qarsamabo. awlaaddii meedkooda lasoo qaaday, lasoo sheegay, lasoo qaaday, gurigooda la keenay, ciddii waxyeesho la weysanaa facebooka ayaa la dhigay in la la-yahay. laba sawir waaye, iyagoo aad u qurux badan u labisan, sawir lasoo dhigay ayaa lagu baafinayay facebooka. bajaajlihii awlaadda waday ayaa aqoonsaday meesha lagu magacahayay tacsiyada taashe ayuu yimid. wuxuu dhahay awlaaddan shalay iyagoo oynaya oo islaanna ay leedahay, eedadooda ayay ma garanaysaa guriga eedadooday diidooyin la leeyahay, oo gurigii uu geeyey ayaa wuxuu dhahay bajaajteedana saan ku qaaday, aniga ayaa ma garanaysaa meel geeyo waay. islaantana waa aqaanaa, heblaaye hebel hebel ayaa la yidhaahdaa. okay, ciidana lagu daray. ii sheeg adiga askarta amaba ma garanaysaa booliska ayaa dabagalay. wiilkii waa la waday, gurigiina geeyaa la dhahay. gurigii calaa ayi xaal mar lastixraacay, la dabagalay, waxaa la ogaaday qofkii awlaadda sidaas yeelay amaba ku taliyey in tacsiyada uu joogo, uu oynayo. tacsiyada ayayba joogtaaba, qof haweeney ah ayaa noqotay. iga raalli ahaada haddii aan dhaho haweeney, waayo dumar inay heerkaasi ay gaarsiisan yihiin marnaba ma aan ogeyn. balse waxaas iyo wax ka sii badanna waa laga sugaa haddiiba ficilkan iyagu ay sameeyeen. islaantaba meeshay ku oynaysaa, ku barooranaysaa, waxay leedahay yaa saan yeel, gacan ka xadaran baa saan yeeshay, iyaga dembi ma laha, saan way ayay leedahay. waxaa la ogaaday eedadooda in ay sidaas yeeshay ayaa la ogaaday walaalayaal. islaan
wadaadkan uu qabi jiray calafkooda uu dhammaaday ay mar hore kala tageen in ay ka dambaysay ayaa la ogaaday. haddaan si kale aan u dhaho awlaaddiisa waaweyn hooyadood ayaa sidaas u gashay ilmahan yaryar. marka walaalayaal adduunyo gadoon ayaa la taagan yahay. qofkii adduunyo wax uga dhiman yihiinow adiga xaalkaaga og. maanta waa adduunyo berina waa aakhiro. ninkii maanta nool beri ma noolo. dulmiga iska ilaali. qof walbow dulmiga iska ilaali. ummadda ha dulminin. in yar ma garanaysaaye dhuuracasta in la mid ah oo dulmi ah ummadda ha u geysanin. hadda arrinkaas ayaa jiro. islaantii waa la qabtaa la leeyahay. nin kale ayaana qabo. waxaaba dhici kartoba in ay uur ay leedahay. xad laguma fulin karo haddii uur ay leedahay. haddii uur aysan lahayn xadkii ayaa lagu fulinayaa. sheekada yacni way sii cakirnaanaysaa. ilaahay ceebteena ma garanaysaa ha asturo. ilaahayna ma fashiliyo. arrinkaas ayaa dhacday. degdegaas kale ayaan haddana idin waday. wabillahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله. balse aniga ma ihi marka hore wariye ma ihi. waxaan warkan idinku soo gudbinayaa waxa weeyaan qof walba dhibaato ayuu sheeganayaa. dhibaatada aad sheeganaysid midaan aan kuu soo gudbinayo meesha ay la eg tahay si aad markaas ka bacdi aad u quusato ama aad u degto aad ma garanaysaa niyad ay kuugu degto. waayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam mar kasta qofka kaa sareeya fiirinin ee qofka kaa hooseeya fiir ayaa la yidhi. yacni mar kasta waxaa la rabaa qofka kaa masiibada badan oo maanta la joogo waqtigan la joogo inaad fiirisid waaye. haddii adiga awlaadaada ay agtaada ay joogaan oo haddana yacni ii sheeg adig sidaa rabtay adig aad ka weysan tahay qof ayaaba maanta ilmihiisa uu la-yahay si foolxun ay ku dhinteen. waxaan hadda idiin soo gudbinayaa aan rabaa inaan idinla wadaago barnaamijkii wax yar ka hor aan idin soo dhigayay oo ahaa awlaaddii ayaa haddeertaan waxaan idin soo gudbinayaa. waa la ogaaday qofkii sidaas yeelay. awlaaddii abriyada ahaa ceebkasaliinta ahaa ee dembi la-aanta ahaa wiilkii iyo gabadhii qofkii xasday oo sidaas yeelay qaabkii yacni waxoosnimadii ii sheeg adiga yeelay ayaan idin soo gudbinayaa oo la helay. awlaaddii insha allah aabbahooda wuu ka soo gaaray. janaasadii waan ku tukanay waana la qaaday. balse aad baa ay u foolxumaayeen oo loo foolxumeeyey. xitaa wiilka gacmaha xitaa waa laga jaray. dhunta xitaa waa laga gowracay. xasidnimo ayaa saas loo yeelay. haddaan idiin sheego qofka saas yeelay ma malaysan karaysaan. yacni ma xamili kartaan ee ii dulqaata. walaalayaal alxamdulilah horta ilmihii waa la soo aasay. dad dembi geystay ma ahayn iyaga. insha allah shafeeca allah uga dhigo ciddii ay ka geeriyoodeen. saan idiin sheegay walaalayaal waxaa ilaan xaqa sidiisa ma qarsamabo. awlaaddii meedkooda lasoo qaaday lasoo sheegay lasoo qaaday gurigooda la keenay ciddii waxyeesho la weysanaa facebookga ayaa la dhigay in la la-yahay. laba sawir waaye iyagoo aad u qurux badan u labisan sawir lasoo dhigay ayaa lagu baafinayay facebookga. bajaajlihii awlaadda waday ayaa aqoonsaday meesha lagu magacahayay tacsiyada taashe ayuu yimid. wuxuu dhahay awlaaddan shalay iyagoo oynaya oo islaanna ay leedahay eedadooda ayay ma garanaysaa guriga eedadooday diidooyin la leeyahay oo gurigii uu geeyey ayaa wuxuu dhahay bajaajteedana saan ku qaaday aniga ayaa ma garanaysaa meel geeyo waay. islaantana waa aqaanaa heblaaye hebel hebel ayaa la yidhaahdaa. okay ciidana lagu daray. ii sheeg adiga askarta ama ma garanaysaa booliska ayaa dabagalay. wiilkii waa la waday gurigiina geeyaa la dhahay. gurigii calaa ayi xaal mar lastixraacay la dabagalay waxaa la ogaaday qofkii awlaadda sidaas yeelay amaba ku taliyey in tacsiyada uu joogo uu oynayo. tacsiyada ayayba joogtaaba qof haweeney ah ayaa noqotay. iga raalli ahaada haddii aan dhaho haweeney waayo dumar inay heerkaasi ay gaarsiisan yihiin marnaba ma aan ogeyn.
balse waxaas iyo wax ka sii badanna waa laga sugaa haddiiba ficilkan iyagu ay sameeyeen. islaantaba meeshay ku ooynaysaa ku barooranaysaa waxay leedahay yaa saan yeel gacan ka xadaran baa saan yeeshay iyaga dembi ma laha saan way ayay leedahay. waxaa la ogaaday eedadooda in ay sidaas yeeshay ayaa la ogaaday walaalayaal. islaan wadaadkan uu qabi jiray calafkooda uu dhammaaday ay mar hore kala tageen in ay ka dambaysay ayaa la ogaaday. haddaan si kale aan u dhaho awlaaddiisa waaweyn hooyadood ayaa sidaas u gashay ilmaha yaryar. marka walaalayaal adduunyo gadoon ayaa la taagan yahay. qofkii adduunyo wax uga dhiman yihiinow adiga xaalkaaga og. maanta waa adduunyo berina waa aakhiro. ninkii maanta nool beri ma noolo. dulmiga iska ilaali. qof walbow dulmiga iska ilaali. ummadda ha dulminin. in yar magaranaysaa dhuuracasta in la mid ah oo dulmi ah ummadda ha u geysanin. hadda arrinkaas ayaa jiro. islaantii waa la qabtaa la leeyahay. nin kale ayaana qabo. waxaaba dhici kartoba in ay uur ay leedahay xad laguma fulin karo haddii uur ay leedahay. haddii uur aysan lahayn xadkii ayaa lagu fulinayaa. sheekada yacni way sii cakirnaanaysaa. ilaahay ceebteena ma garanaysaa ha asturo. ilaahayna ma fashiliyo. arrinkaas ayaa dhacday. degdegaas kale ayaan haddana idin waday. wabillahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله. balse aniga ma ihi marka hore wariye ma ihi. waxaan warkan idinku soo gudbinayaa waxa weeyaan qof walba dhibaato ayuu sheeganayaa. dhibaatada aad sheeganaysid midaan aan kuu soo gudbinayo meesha ay la eg tahay si aad markaas ka bacdi aad u quusato ama aad u degto aad ma garanaysaa niyad ay kuugu degto. waayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam mar kasta qofka kaa sareeya fiirinin ee qofka kaa hooseeya fiir ayaa la yidhi. yacni mar kasta waxaa la rabaa qofka kaa masiibada badan oo maanta la joogo waqtigan la joogo inaad fiirisid waaye. haddii adiga awlaadaada ay agtaada ay joogaan oo haddana yacni ii sheeg adig sidaa rabtay adig aad ka weysan tahay qof ayaaba maanta ilmihiisa uu la-yahay si foolxun ay ku dhinteen. waxaan hadda idiin soo gudbinayaa aan rabaa inaan idinla wadaago barnaamijkii wax yar ka hor aan idin soo dhigayay oo ahaa awlaaddii ayaa haddeertaan waxaan idin soo gudbinayaa. waa la ogaaday qofkii sidaas yeelay. awlaaddii abriyada ahaa ceebkasaliinta ahaa ee dembi la-aanta ahaa wiilkii iyo gabadhii qofkii xasday oo sidaas yeelay qaabkii yacni waxoosnimadii ii sheeg adiga yeelay ayaan idin soo gudbinayaa oo la helay. awlaaddii insha allah aabbahooda wuu ka soo gaaray. janaasadii waan ku tukanay waana la qaaday. balse aad baa ay u foolxumaayeen oo loo foolxumeeyey. xitaa wiilka gacmaha xitaa waa laga jaray. dhunta xitaa waa laga gowracay. xasidnimo ayaa saas loo yeelay. haddaan idiin sheego qofka saas yeelay ma malaysan karaysaan. yacni ma xamili kartaan ee ii dulqaata. walaalayaal alxamdulilah horta ilmihii waa la soo aasay. dad dembi geystay ma ahayn iyaga. insha allah shafeeca allah uga dhigo ciddii ay ka geeriyoodeen. saan idiin sheegay walaalayaal waxaa ilaan xaqa sidiisa ma qarsamabo. awlaaddii meedkooda lasoo qaaday lasoo sheegay lasoo qaaday gurigooda la keenay ciddii waxyeesho la weysanaa facebookga ayaa la dhigay in la la-yahay. laba sawir waaye iyagoo aad u qurux badan u labisan sawir lasoo dhigay ayaa lagu baafinayay facebookga. bajaajlihii awlaadda waday ayaa aqoonsaday meesha lagu magacahayay tacsiyada taashe ayuu yimid. wuxuu dhahay awlaaddan shalay iyagoo oynaya oo islaanna ay leedahay eedadooda ayay ma garanaysaa guriga eedadooday diidooyin la leeyahay oo gurigii uu geeyey ayaa wuxuu dhahay bajaajteedana saan ku qaaday aniga ayaa ma garanaysaa meel geeyo waay. islaantana waa aqaanaa heblaaye hebel hebel ayaa la yidhaahdaa. okay ciidana lagu daray. ii sheeg adiga askarta ama ma garanaysaa booliska ayaa dabagalay. wiilkii waa la waday gurigiina geeyaa la dhahay. gurigii calaa ayi xaal mar
لاستحراعي لدبقلي وحال أوغادي qofkii awlaadda sidaas yeelay amaba ku taliyay in tacsiyada uu joogo uu oynayo tacsiyada ayay joogtaaba qof haweeney ah ayaa noqotay iga raali ahaada haddii aan dhaho haweeney waayo dumar inay heerkaasi ay gaarsiisan yihiin marnaba ma aan ogeyn balse waxaas iyo wax ka sii badanna waa laga sugaa haddiiba ficilkan iyagu ay sameeyeen islaantaba meeshay ku ooynaysaa ku barooranaysaa waxay leedahay yaa saan yeel gacan ka xadaran baa saan yeeshay iyaga dembi ma laha saan way ayay leedahay waxaa la ogaaday eedadooda in ay sidaas yeeshay ayaa la ogaaday walaalayaal islaan wadaadkan uu qabi jiray calafkooda uu dhammaaday ay mar hore kala tageen in ay ka dambaysay ayaa la ogaaday haddaan si kale aan u dhaho awlaadiisa waaweyn hooyadood ayaa sidaas u gashay ilmaha yaryar marka walaalayaal adduunka doon ayaa la taagan yahay qofkii adduunyo wax uga dhiman yihiinow adiga xalkaaga og maanta waa adduunyo berina waa aakhiro ninkii maanta nool beri ma noolo dulmiga iska ilaali qof walbow dulmiga iska ilaali ummadda ha dulminin in yar magaranaysaa dhuuracasta in la mid ah oo dulmi ah ummadda ha u geysanin hadda arrinkaas ayaa jiro islaantii waa la qabtaa la leeyahay nin kale ayaana qabo waxaaba dhici kartoba in ay uur ay leedahay xad laguma fulin karo haddii uur ay leedahay haddii uur aysan lahayn xadkii ayaa lagu fulinayaa sheekada yacni way sii cakirnaanaysaa ilaahay ceebteena ma garanaysaa ha asturo ilaahayna ma fashiliyo arrinkaas ayaa dhacday degdegaas kale ayaan haddana idin waday wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh